ajandaha aan kaga qoranahay shirka oo ah security-ga iyo cadaaladda iyo siyaasadda intaba arrimaha amniga muddadii 2 sano ee aan koonfur galbeed joognay aan joogay aniga shakhsiyan waxyaalo badan yaa noo qabsoomay wax badan oo muhiim ahaa inay qabsoomaan la rabayna ma suurtagelin oo ma qabsoomin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraaho inay qabsoomaan saa la socotaan koonfur galbeed waxay ka kooban tahay 3 gobol iyo 18 degmo oo aad u waaweyn 14 degmo oo ka mid ah waxay gacanta ugu jirtaa dowlad goboleedka koonfur galbeed 4 degmo oo ka mid ahna waxaa haysto argagixisada caalamiga ah ee shabaab waxaana muddadaas waqtiga aan imaanaynay aan imaaday 5 degmay ahayd waxay gacantooda ku jirtay laakiin 1 degmo oo ka mid ah degmada Owdheegle ah dib iyo howlgalladii la wadayay gacanta ugu soo noqotay dawladda 4taas degmo oo shabaab gacantiisa ku jirana 2 degmo oo gobolka Bakool ah degmada Tiyaglow iyo degmada Rabdhuure iyo 2 degmo oo gobolka Shabeellada Hoose ah Sablaale iyo Kunturwaarey ayagana dhaqdhaqaaqyo iyo shaqooyin fiican ayaa ka socdo intaas warbixinta guud markaan kaga gudbo waxyaalaha muhiimka noo ahaa waxay ahaayeen furitaanka jidka isku xiro jidadka isku xiro koonfur galbeed goboladeeda iyo degmooyinkeeda oo ugu muhiimsanaa jidka xamar iyo baydhabo isku xiro MCR-ka heshiiskii qodob shirarkii kan ka horeeyay ilaa iyo kuwii annaga naga horeeyay oo Brussels heshiiska lagu soo galay ahaa oo weli aanan qabsoomin oo nan ka rajo dhiginoon rajaynayna inuu qabsoomi doono waxyaalaha muhiimka ah noo qabsoomin ka mid ah waxaan noo qabsoomay degmooyinkaas 14 degmo oo gacanta ku jiro waxay si nabadgelyo ah ugu nool yihiin shacabka ku nool ayadoo ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed degmooyinkaas iyo ereyadeedaba waxaa si nabada loogu wada nool yahay oo shacabkana ugu nool yihiin ayna u helaan adeegyadoodii bulshada ayaga oo wixii ay xaq u lahaayeen oo dhan u aado waxbarasho iyo caafimaad iyo adeegyadii bulshada kale oo dhan ka helo waxaa marka aan u baahannahay markii intaas laga tago in la isu furo gobolada iyo degmooyinka baydhabo iyo xamar afgooye iyo baraawe baydhabo iyo bakool degmooyinka dhan isu socodkooda in la isku furo oo ay shaqeeyaan insha Allah sidii heshiiska uu ahaa oo ay ka wada qayb qaataan hay'adaha amniga naga kaalmeeyo oo ugu horeeyaan AMISOM iyo dawladaha caalamiga ah oo kale oo nala shaqeeyo waxaan rabaa marka inaan si gooni ah aan inta uga mahad celiyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawladda federaalka iyo ciidamada dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawladaha sida qaaska ah noola nagala shaqeeyo security-ga oo ay ka mid yihiin dawladda Ingiriiska oo ciidamada qaybta 6aad tababarada iyo qalabaynta iyo aad noo garab istaagsan oo aad noogala shaqeeyo sidaas oo kale ciidamada danab oo ayagana dawladda Mareykanka ayadana ay gacan weyn ay siiso AMISOM waxaan kaloo sidaas oo kale u mahad celinaynaa AMISOM Police oo 170 ah oo na soo gaaray oo loogu talagalay inay arrimaha doorashooyinka amniga magaalada Baydhabo ay nagala shaqeeyaan ayagana si dhameystiran ay noo soo gaareen waxaan uga mahad celinaynaa AMISOM iyo Ambassador Madeira oo asagana aad uga shaqeeyay hay'adaha amniga waxaan kaloo noo suurtagalay tababaradii ciidankii biliiska ahaa ee Shabeellada Hoose inaan si tartiib ugu dambeyn bishaan aan qalabeynteeda aan ku dhameyn doono oo haddana aan bilownay qaybteeda wajigeeda koowaad la qalabeeyay ayna ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka
Baraawo iyo Baydhabo ay qayb ka noqon doonaan ayna tegi doonaan goobihii loo tababaray oo shabeellada hoose ah degmooyinkii sida Afgooye iyo Awdheegle iyo Marko iyo Janaale iyo Bariire iyo Sibiid iyo Caanoole iyo Mareerey. sidaas oo kale waxaan codsanaynaa howlgalladii ka socday shabeellada hoose oo wada jirka ahaa oo ciidamada qalabka sido iyo ciidamada qalabka sido iyo ciidamada AMISOM iyo dawladihii aan hadda soo sheegay oo gacanta weyn ka bixinayay howlgalkii oo Janaale maray inuu hore u socdo si loo gaaro ilaa iyo meesha ugu dambayso ayadana aan la joojinin oo howlgallada ay socdaan ayadana ayaan codsanaynaa. markii arrimaha amniga aan intaas uga baxo arrimaha siyaasadda loo dhan yahay koonfur galbeed tallaabooyin fiican oo arrimaha siyaasadda ah ayaan ka qaadnay oo ugu horeyso dib u heshiisiin xasilooni siyaasadeed deganaansho dhismihii golaha deegaanka ee degmooyinka oo ay ugu dambeysay degmada Diinsoor oo aan u dhisnay golihii deegaanka 22 oo boqolkiiba 50 aan ka dhignay haween. sidaas oo kale waxaan kaloo noo suurtagalay dhismihii baarlamaankii koonfur galbeed oo aan waafajinay dastuurka oo ku qornaa 95 markii horena ahaa 149 inaan ku soo celino dastuurkii aan waafajino oo 95 aan ka dhignay. markaan ka gudbo arrimaha siyaasadda saa la socotaan waxaan jiro arrimihii doorashooyinka oo process dheer iyo wada hadallo dheer badan soo maray muddo dheerna aan soo wadnay wada hadalkana ka soo bilowday Samareeb 1 2 3 ugu dambeyntiina heshiis loo dhan yahay oo dadka dhan ay ku qanacsan yihiin lagu gaaray 17 September Muqdisho. heshiiska markii uu dhamaaday dadka dhan ay ku wada qanacsanaayeen madaxda dawlad goboleedyada dhan iyo ay joogeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba oo go'aankaas doorashada dadban ah uu ka soo baxay. heshiiskii markuu dhamaaday wuxuu u gudbay golaha sharci dejinta labada aqal lagu ansixiyay ayadoo raali laga yahay yaa heshiis lagu yahay baa la ansixiyay. waxaa loo gudbay fulintii waxaan ka qaadanay qayb muhiim leh iyo waajibaadkii nooga aadanaa oo ahaa fulinta heshiiskaas oo ahayd 2 guddi oo mas'uuliyaddeeda naga saarneed inaan soo gudbinay guddigii siid iyo kii fiid iyo kii xalinta khilaafaadka annaga oo raacayna habraaci rasmiga ahaa ee lagu heshiiyey ee ay ku heshiiyeen madaxda dawladda oo aan heshiiska ku wada qornay annaga oo raacayno waxaan soo gudbinay xubnihii guddigii siid iyo fiid iyo labadii xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka ahayd waxayna ka qayb galeen waxaana u gudbinay shaqooyinkooda inay qabsadaan. sidaas oo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhammaystirno oon qabanno doorasho xor iyo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku qanacsan yihiin oo dadka reer koonfur galbeed ay ku qanacsan yihiin oo sidii loogu talagalay oo lagu heshiiyey oo heshiiskii loo dhamaa u dhacay aan u qabanno annaga oo fiirinayno boqolkii 30 haweenka in ayadana ay suurta gasho oo aan ku soo saarno boqolkii 30 haweenka. sidaas oo kale waxaan codsanaynaa madaxda kale oo Soomaaliyeed ee heshiiskan qaybta ka ahayd inay ayagana ay heshiiskii iyo ballantii iyo wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ay u fuliyaan oo ay u dhaqan geliyaan si ay u dhacdo doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo sidii horeyba loo codsaday wax badan aan horey u sheegnay muddo badanna laga hadlay. runtii heshiiskan waxaa loo soo maray dadaal badan waqti badan tanaasul badan dadka Soomaaliyeed oo dhanna waa og yahay wuxuu soo maray iyo marxaladaha kala duwanaa uu soo maray iyo meesha la kala joogay qof iyo cod dawladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaanku uu ku jiro qorshooda wuxuu ahaa in qof iyo cod doorasho la qabto. markii aan aragnay duruufaha jiro iyo waqtiga meeshuu marayo
madaxda dowlad goboleedyada yaa waxay go'aansadeen in doorashada hadda la hayo annagaa soo jeedinay kulliga annagana heshiisaan ku ahayn in doorashadii dadbanayd oo lagu daray 3 qodob inaan qaadano heshiiskaas madaxda dowladda oo ugu horeeyay madaxweynahana tanaasul suubiyay waa nagu raacay dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo siyaasiyiinta iyo shacabkana kulligood waa nagu raaceen labadii gole baarlamaankana waa ansixiyeen waa qoran yahay heshiiska waa saxiixnay wax hadda loo noqonayo ma aha qof kastoo Soomaaliya haysto baarlamaanka haysto siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan haysto kii la taageeray buu ahaa kii lagu farxay buu ahaa waxaan rabnaa sida uu u qornaa in loo dhaqan geliyo oo loo fuliyo aanan gadaal loo noqonin doorashadana aysan dib u dhicin waana caddahay waxa ku qornaa waxyaalo cabasho haday jiraan waa laga wada hadli karaa cabasho la'aan ma dhici karto kana saan aha waa la sixi karaa laakiin waxay u baahan tahay in la ilaaliyo heshiiskii in la ilaaliyo nidaamkii dawliga ahaa in la ilaaliyo dawladnimadii heshiiskaas oo ahaa fulintiisa iyo qabashadiisa ay mas'uul ka ahayd dawladda federaalka iyo xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka dawlad goboleedyada inay fuliyaan heshiiskeeda ahaa waxyaalaha cabashada oo hadda laga hadlayo oo heshiiska ku jiray arrimaha Somaliland markii la yiraahdo oo laga hadlayo annaga waa joognay heshiiska waana qoran yahay waa la hayaa madaxda dhanna waa joogeen hal maalinna meel looga hadlay ma jirin Cabdi Xaashi baa looga dambeynaya guddiga Somaliland way caddahay heshiiskay ku qoran tahay waxa ku qoran ra'iisul wasaaraha soo magacaabayo waxa fadhiyay shirka oo qayb ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo Somaliland ka soo jeedo waxa laga tashanayay waxa hay'adda fulinta iyo qorayso oo shaqadaas qabanayso ahaa heshiiska Cabdi Xaashi nin oday ah Soomaaliyeed waaye gudoomiyihii waxa weeye aqalkii sare siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin ninkii wax la rabay in asaga hadii loo dhiibay ay ahayd markii meesha la joogay bay ahayd in heshiiska lagu daro la qoro la yiraahdo Cabdi Xaashi loo dhiibay nasiib wanaag laguma qorin hadda in la soo xasuusto marka oo caqabad laga dhigo aniga uma arki in horey loo socdaan qaba waxyaalaha lagu heshiiyay oo dhan wax cad bay ahaayeen waxa hadda laga hadlayo dhan runtii markii gadaal loo noqdo kuma jirin waa jirtay arinta ka jirto gado iyo cabashada Jubbaland waxa looga heshiiyay waxay ahayd in dib u heshiisiin la sameeyo dadka reer Jubbaland dib u heshiisiin loo suubiyo dawladana ay qayb ka qaadato Jubbaland ay qayb ka qaadato dib u heshiisiintaas ay socoto laakiin si aanan condition laga dhigin oo shuruud loogu xirin doorashada arrimaha doorashadana ay socdaan dib u heshiisiintana ay socoto waxaan codsanaynaa marka inaanan dib loo noqonin horey loo socdo aanan inta fiiri aysan noqonin waxaan diyaar u nahay oo habeenii maalin u taaganahay wax allaale iyo wixii cabasho qabo oo Soomaali ah ama siyaasi ha noqdo ama dawlad goboleedyada saaxiib